بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم waxaan kusoo dhex jirnay cashirkeennii duruus fi tawxiid waxay una maraysay aayaddii waltakum minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri waya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani almunkari waulaa'ika hum lmuflixuun wuxuu yidhi wa min sunnati illaahi sunnada allah waxaa ka mid ah an yuhlika alumamu in ummadaha lagu halaaga bidunuubi dunuubta in lagu halaaga walmacaasi iyo macaasida idaa fashad fiihi marka ay ku faafto gudahooda waqalabad ay qaalib ka noqoto calayhim dushooda macaasidii bisababi incidaami alaamiriin taasooy sabab u tahay in la waayey alaamiriina bilmacruuf dadkii amraya macruufka annaahiina ireebayay can ilmunkari xumaha ummad kasta oo meel ku nool marka ay noqoto ummad uu qaalib ka yahay fisqiga iyo waxaa weeyaan wuxuusan allah subxana watacaala raalli ka ahayn waxaa khatar ugu jiraan noloshooda dhan inay baaba'do bay khatar ugu jiraan allah subxana watacaala wuxuu yidhi fa ahlaknaahum waan halaagnay bidunuubihim baana ku halaagnay bisababi dunuubihim baa lagu halaagay wixii ayagay gacmahooda kula yimaadeen baa lagu halaagay wa ansha'naa waxaan abuurnay min bacdihim ayaga kadib qarnan aakhariina qarni kale qolo kale baa ilaahay abuuray oo min bani aadam ka mid ah ayagana waxaa la eegayaa linandura maadaa tacmaluun weyaan wax ayaga ay sameeyaan baa allah subxana watacaala fiirinaya inay ku toosnaadaan waddada istiqaamo la yimaadaan iyo inay markaa ka leexdaan waddada ilaahay subxana watacaala ugu talagalay wuxuu yidhi saas oo kale allah subxana watacaala lucina waa la lacnaday aladiina kafaruu kuwii gaaloobay oo min bani israa'iil reer bani israa'iil ahaa calaa lisaani daawuuda carabkii nebi daawuud baa lagu lacnaday wa ciise bni maryama iyo carabkii nebillaahi ciisa lagu lacnaday oo maadaama kutubo la siiyey ilaahay subxana watacaala carabkooda lacnad kusoo dejiyey in gaaladii xilligaa joogtay oo nimankii malcuuniinta ahaa oo ambiyada ilaahay subxana watacaala garabkooda ka baxay ay malcuunan yihiin daalika taana waxaa weyaan bimaa casow caasintii ilaahay ay caasiyeen wa kaanuu waxay ahaayeen yactaduuna kuwa xadgudba bay ahaayeen kaanuu waxay ahayn laa yatanaahuna kuwaan iska reebin can munkarin xuma ay facaluuhu sameeyaan labi'sa waxaa xumaa maa kaanuu yafcaluun waxay ay samaynayeen kaanuu laa yatanaahuna can munkarin facaluuhu waxay ahaayeen kuwaan iska reebin xumo ay sameeyeen labi'sa waxaa xumaa maa kaanuu yafcaluun waxay samaynayeen waa sidaasoo ummad kasta oo meel ku nool hadday mar lahayn dad u taagan macruufka oo lays amra iyo munkarka oo la iska reeba noloshooda waxay noqonaysaa mid qalqil ah ama waxay noqonayaan dad ciqaab ilaahay subxana watacaala inta ay ku socoto haddayan ajal ilaahay oo musaman ay ahaan lahayna laqudiya baynahum waaba laga takhallusi lahaa buu yidhi allah subxana watacaala markii kuwii gaaladii ay weydiisteen nabiga caleyhi salaatu wasalaam in saacadda lasoo dejiyo waxaa la yidhi ajal musaman bay leeyihin haddii la arko maanta ayagoo iska barwaaqaysan oo waxaa weeyaan munkarkii iyo kufrigii iyo gaalnimadana ku jira oona iska ladan haddii la arko waxaa jirta ajal ilaahay subxana watacaala ugu talagalay oy gaarayaan ajashoodaasaa marka lala sugayaa intaan ajasha la gaaranay intaa musiibo ka bixi maayaan maalin walbaba dhibaata ku fatahmaysa marka waata suuradda aayadda ahayd walaa yazaalu aladiina dalamuu kuwii dulmiga sameeyey ka suuli maayaan tusiibahum qaaricatun bimaa sanacuu inay qaarico iyo musiibo ay ku dhacayso oo waxaa weyaan weligood ka bixi maayaan dhib ow taxullu qariiban min daarihim ama waxayba degaysaa meel ku dhowo intaa musiibo unbaa haleelaysa marka tusaale waxay noogu filan suurata caraaf in ilaahay subxana watacaala mathal nagu siiyey dad qaryo deganaa magaalo xeebeed deganaa ku noolaa halkaa marka wuxuu allah subxana watacaala amray inayna daban kalluunka maalinta sabtiga ah maalinta sabtigaa lagu jirrabay maalintii sabtiga kalluunka banaanku imanayaa maalmihii kalena la arki maayo badduu qoosaya waa lagu imtixaanay moogta dembigoodiana sababta iska lahayd marka allah subxana watacaala waxay sameeyeen nimankii makrabay isticmaaleenoo waxay sameeyeen kalluunkii togog baa loo jeexax baa loo sameeyey maalintii sabtiga ahayd buu marayaa halkii buu gelayaa markuu galana iridii baaba laga xirayaa maalmaha kale lala baxayaa marka axaddii iyo talaadadii iyo maalmihii kale baa lala baxayaa marka ixtiyaalkaasay sameeyeen ilaahay subxana wataala dadka iyaga ah waa bedelay daanyeer baa laga dhigay inta iyada ahayd dembigaas ay galeen awgii baa daanyeer looga dhigay ilaahay waa doorshay 3 qaybood bay u qaysameen dadkii marka qaryadaa deganaa qaar waxay yidhaahdeen qoladii waxaa weeyaan wuxuu ilaahay ka xarimay banaysatay la halaagay noqdeen qaybna waa ka aamuseen qaybna waxaa weeyaan waxay ahaayeen kuwa
ka reebay munkarkii marka munkarkii inta reebtay waxa weeyaan kuwa aamusayna waxaa loo rajaynayaa insha allah badbaado kuwa reebayna dee waaba kuwa guulaystay oo ilaahay subxaana watacaala noo tilmaamay wayowma sabtihim shuracan wayowma laa yasbituuna laa ta'tiihim kadalika nabluuhum bimaa kaanuu yafsaquun marka kuwana maalinta sabtigii baa ilaahay ku jarrabay kuwana waxay yidhaahdeen lima taciduuna qowman illaahu muhlikuhum aw mucadibuhum cadaaban shadiida war dad ilaahay halaagaya maxaad ka waarinaysaan ay yidhahdaan halkaas iska mareen maadaama halaag ilaahay ku socdo bannaankaas ilaahay waa ka dhex baxeen halkaasi ka aadeen kuwana waxay yidhaahdeen moogta qaaluu macdiratan ilaa rabbihim walacallahum yattaquun waxaan u waaninayna waa macdiro bal in ilaahay subxana watacaala ay xusuustaan marka sidaa daraaddeed haddii munkarka la isku raaco waxaad ogaanaysaa in ay dhibaato ka imaanaysa wuxuu yidhi falamru bilmacruuf wanaagga oo lays amro wanahyu can ilmunkari xumaha oo layska reebo huwa waxaa weeyaan alladii kan yadminu u damaana qaadaya likulli ummatin ummad kasta wa jamaacatin jamaaco kasta an tabqaa in ahaato qawiyatan mid awood leh casiisatan ee sharaf leh mutamaasikatan is haysato mutacaawinatan iskaalmaysanaysa fi dunya adduunyadan oo aakhara nin walba camalkiisa horyaalla marka arrimahan inay dad jira dadkaan noqdaan waxaa sabab u noqonaya inay yihiin dad macruufkana amraya munkarkana reebayo wa an takuuna inay ahaato naajiyatan mid ka badbaaday min cadaabillaahi cadaabka laa asarmadiya ee joogtada fil aakhirati aakhiro faa'isatan ku guulaysatay bijannaatihi jannaadkiisii jannooyinka allah allatii khuliqad taasoo loo abuuray lilbaqaa'i baaqitaan ee baaqi noqosha walkhuludi waarid arrintaas waxaa damaanad ka ah inay dadkaas la yimaadaan macruufkii munkarkana ay reebaan walmacruufu macruufka alladii kaasoo yajibu ay waajibka tahay alamru bihi in las amro darajaatun darajaad weeye mutafaawitatun kala tagsan fil ahmiyati xagga ahmiyadda walwujuub iyo waajib ahaanshiisa wacdamuhu waxaa ugu weyn sha'nan xagga sha'niga wacallaahu ugu sarreeya qadaran xagga qadartahu waxaa weeyaan addacwatu ila tawxiid tawxiidka laisugu yeero tawxiidka marka waa akbarulmacruuf weeyaan kamaa sidaas oo kale ana almunkara munkarka alladii kaasoo yajibu ay waajibka tahay annahyu canhu in laska reeba darajaatun waa darajaad mutafaawitatun kala tagsan fil ahmiyati walwujuub xagga ahmiyadda iyo waajib ahaanshiisaba oo kadalik sidaas oo kale wacdamuhu waxaa ugu sarreeya sha'na xagga sha'niga wacallaahu qadaran ugu qadarna sarreeyahu waxaa weeyaan annahyu can ashirki shirkiga oo la iska reeba wahumaa shirkiga iyo tawxiidkana mutalaazimaan waa islaazimayaan walaa yaftariqaani mana kala tegayaan lianna waxaa yeelay man amara bitawxiidi qofka tawxiidka amray faqad nahaa can shirki shirkigu reeba saasay mutalaazim isugu yihiin haddaad tiraado war ilaahay keligii ha la caabudo qeyrkiina ha laga taga baa daba taalla labadaas marka saas isu suran yihiin qol waxaa tiradaa inii umirtu waxaa li amray rasuulka alla waxaa tiradaa inii umirtu waxaa li amray an acbudallaha in allah caabudo walaa ushrika bihi ana waxba la wadaajin ilayhi allah xaggii baan adcu dadku ugu yeerayaa wa ilayhi allah xaggii bay ahaatay ma'aabi laabashadayda oo allah subxana watacaala inay keliga caabudaan baan dadku ugu yeerayaa wey daqiiqadaha igu dheeraaday marka intaasaan ku waabaya asalaamu calaykum